habeen wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena maantana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la filayaa inay u socdaalaan magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya si ay uga qayb galaan caleemasaarka fidhiye. dowladaha Itoobiya, Imaaraadka iyo sidoo kale Somaliland oo iskaashanaya ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan in ay xiranto dekada wadanka Djibouti ee magaalada Djibouti. gaaska laga soo saarayo dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya oo laga safrin doono magaalada Berbera. 3 wadan ayaa isla wada howlahaasi. halkan ayaan kugu falanqeyn doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee wadanka Kenya ninka lagu magacaabo Raila Odinga oo dhintay. waxaad kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dadka muwaadiniinta ah ee xajka u soconaya lacag aad u fara badan dusha ka saartay. booliiska Soomaaliya oo ku sugan dekada magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay qabteen daroogooyin halistooda leh oo haddii ummadda Soomaaliyeed lagu sii deyn lahay ay ka dhici lahayd arrin aad iyo aad u khatar ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka ee ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. aynu ku bilaabano madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo aad u ballaaran ayaa la rajeynayaa inay gaaraan magaalada Laascaanood ee xarunta u ah maamulka waqooyi bari si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka waqooyi bari ee haatan la doortay. magaalada Laascaanood ayaa maanta isu bedeshay xarun si weyn looga dareemayo diyaargarowga siyaasadeed, amni iyo bulsho, iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu gaari doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. labada mas'uul ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Firdhiye, taas oo la qorsheynayo inay noqoto mid si heer qaran ah loo agaasimay. wadooyinka waaweyn ee Laascaanood ayaa la xiray boorar iyo calaamado ay ka muuqdaan sawirada madaxda iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu xidhay goobaha ganacsiga iyo sidoo kale xarumaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leedahay iyo maamulka waqooyi bari magaaladaasi Laascaanood. waxaa la arkayay shaqaale iyo sidoo kale dadweyne isdaba jooga kuwaasi oo ku mashquulsan nadiifinta iyo bilicda magaalada Laascaanood. waxaana sidoo kale baraha bulshada laga arkay calanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, calanka qaranka Soomaaliya oo lagu taagayo bir dheer si uu uga babado guud ahaan magaalada Laascaanood. wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dadka deegaanka iyo ganacsatadu ay si iskood ah ugu biirayaan diyaargarowga loogu jiro in madaxda qaranka la soo dhaweeyo. waxaa sidoo kale loo diyaarinayaa ciidamo gaar ah oo ilaalin doona goobta munaasabadda, halka cutubyo kale la geeyey duleedka magaalada si looga hortago haddii ay imaadaan arrimo lidi kuwa amniga iyo sidoo kale carqaladeyn guud. saraakiil ka tirsan laamaha amniga ayaa waxay sheegeen inay jiraan qorshe isku dhafan oo ay wadaan ciidamada qaranka, kuwa booliiska iyo maamulka deegaanka si loo hubiyo booqashada in ay u dhacdo si nabdoon. munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee waqooyi bari Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee madaxweynaha federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha si rasmi ah ay uga qayb galayaan munaasabadan, isla markaana madaxweyne Soomaaliyeed tan iyo markii la dilay Cabdirashiid Cali Sharmaake uu noqonayo kii u horeeyay ee cagihiisa dhiga magaalada Laascaanood. tani ayaa waxay u tahay dadka shacabka ee reer Laascaanood mid ay aad iyo aad uga sugayaan, isla markaana ay waqti dheer u taagan yihiin sidii ay maalin u arki lahaayeen. markana dowladaha Itoobiya, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale maamul goboleedka Somaliland ayaa waxay ka shaqeynayaan in ay xiraan dekada Djibouti, isla markaana laga dhigo meel baylaha ah ganacsigeedana la burburiyo. dowladaha Imaaraadka ayaa waxa uu kala shaqeynaya Itoobiya in gaaska laga soo saarayo dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya noqoto meesha laga dhoofinayo, isla markaana dunida lagu iibinayo dekada Berbera ee Somaliland. arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii Somaliland iyo sidoo kale waa markii Imaaraadka iyo Djibouti ay isku dhaceen. shirkadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP Worldna laga mamnuucay dekadaha wadanka Djibouti ay isticmaalaan ama ay ka shaqeeyaan. arrintan oo noqotay mid heer caalami ah, isla markaana la gaaray ismaxkamadeyn ka dhacday wadanka Ingiriiska ayaa looga adkaaday shirkadda DP World ee uu leeyahay Imaaraadka Carabta inay ka shaqeeyaan dekada magaalada Djibouti, taas oo dowladdu markii hore ogolaatay kadibna dib uga laabatay.
arrintaasi ka dhalatay ayaa imaaraadka carabta waxa uu qorsheynayaa sidii uu hoos ugu dhigi lahay dhoofinta wadanka Itoobiya ay ka sameeyaan wadanka Jabuuti. waxa uuna haatan ka bilaabay in shaqada gaaska lasoo bixinayo ay noqoto meesha laga dhoofinayo magaalada Berbera ee maamulka Somaliland. arrintan ayaa markii hore waxaa ka shaqeynayay madaxweynaha wadanka imaaraadka carabta iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland, waxaana halkaasi dhowr jeer uu isaga daba laabtay madaxweynaha Somaliland inuu tago imaaraadka carabta kadibna uu ku laabtay Addis Ababa. waxaana la sheegayaa sababta uu haatan halkaasi u joogay inay tahay arrimahaasi sidii loo dhammaystiri lahay. labada waa madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa xalay jira soo dhaafay wada hadlay isla markaana casho yeeshay. lamana sheegin waxa ay ka wada hadleen, laakiin waxaa la xaqiijinayaa in arrimaha laga hadlayay ay ahayd arrintaasi aan loo baahnayn in si kore loo sheego. waxayna Somaliland ku dadaalaysaa in dekedeedaasi ay u noqoto il dhaqaale oo iyadu ku faanto. markana booliiska Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dekeda magaalada Muqdisho ay ka qabteen qalab daroogo oo khatar ku ahaa, kaas oo magaalada Muqdisho la doonayay in la geliyo arrimo ganacsina loo waday. afhayeenka booliiska Soomaaliya ninka lagu magacaabo Cabdifataax Aadan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanku ay dekeda Muqdisho ka qabteen daawooyin halistooda leh, kuwaasi oo ah kuwa maandooriye ah. afhayeenku waxa uu sheegay in kunteendhar lagu qabtay dekeda kaas oo laga helay waxyaabaha maanka dooriya oo laga dhigayay daawooyin, sidoo kalena dadka waday alaabtaasi ay ahaayeen kuwa ka ganacsada shaqooyinka noocaasi ah. maandooriyahan waxaan uga daba tagnay gudaha kontaroolka lagu soo shubay, waxayna ahaayeen waxyaabo lagu soo shubay kunteendharkaas oo dusha looga qoray erayo ay ku sheegeen inay yihiin daawooyin ama inay yihiin sidoo kale barastimool. horey dekeda Muqdisho waxaa loogu qabtay kiisas la mid ah oo lagu soo gelinayay daawooyin iyo sidoo kale alaabo darooga ah, magacyo ah in ay yihiin kuwa ganacsi iyo sidoo kale daawooyin muhiim u ah sida daawooyinka barastimoolka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee gaaska loo isticmaalo inay ka mid yihiin. daawooyinkan oo loo isticmaalo daroogada ayaa halis weyn ku ah shacabka Soomaaliyeed, iyadoo lamaha ammaanku ay kordhiyeen kormeerka iyo qabashada daawooyinkan laga keeno dalka dibadiisa, kaas oo inta badan kasoo gasha dekeda magaalada Muqdisho, walow mararka qaarkood la arko in laga soo gelinayo airportka Muqdisho. booliiska Soomaaliya waxay sheegeen in arrintan ay ugu jiraan feejignaan weyn, isla markaana ay ka shaqeynayaan sidii ummadda Soomaaliyeed ay uga qaban lahayn arrimaha noocaas oo kale ah. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay aaska madaxweyne ku-xigeenkii hore ee wadanka Kenya ninka lagu magacaabo Raila Odinga oo ku dhintay wadanka India, isla markaana loo soo qaaday wadankiisa si loogu duugo. baraha bulshada ayaa laga arkayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hor istaagaya meydka Raila Odinga, isla markaana gacanta saaranaya shafka, ayna muuqato in madaxweynuhu uu qoortiisa hoos u laalaadiyay. arrintan ayaa dad badan oo shacab ah aada uga caroodeen, waxayna sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya oo ah qof muslima aan loo baahnayn in dhaqanka iyo sidoo kale dadka gaalada ah waxa ay sameeyaan uu ka daba sameeyo. si kastaba arrimahan ayaa waxay yihiin arrimo u baahan diblomaasiyad iyo sidoo kale hamaamuus, waxaana dalalka dariska inta badan ay isku sharfaan habdhaqamadooda. taasna waa midda keenaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka Kenya iyo dadkooda sida ay u dhaqmaan uu ugu sharfo dadka ay qiimeeyaan oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenkooda oo iyaga ka geeriyooday. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xujayda sanadkan ka safraysa Soomaaliya ee aadaysa xajka waxa ay dul saartay lacago fara badan inay bixiyaan, isla markaana muddo kooban gudaheed ay lacagahaasi kula baxaan haddii ay doonayaan inay xajka tagaan. wasaaradda awqaafta ayaa waxa ay fartay in dhammaan xujayda ay si degdeg ah u bixiyaan lacagta lagu xajinayo ugu dambeyn 20 bisha November 2025, taasi oo dhan calaa qof inuu bixin doono 4,543.5 senti. shirkadaha adeega xajka waa inay qiimeyn horudhaca ku sameeyaan xaaladaha guud ee badqabka caafimaadka ee xujayda ama xaajiga, maskax ahaan, jir ahaan, muuqaal ahaan, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda awqaafta. dhammaan xamaradaha iyo shirkadaha adeega xajka waa in ay ku wacyigeliyaan xujayda Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan ama aysan la dhoofi karinin garoon aan ahayn garoomada diyaaradeed ee ay wasaaraddu u asteysay inay ka dhoofaan xujayda Soomaaliyeed, kuwaas oo kale ah
muqdisho, hargeysa, garowe iyo boosaaso ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya. arrimaha xajka ayaa inta badan dadka shacabka waxa ay ku sheegaan in lagu sameeyo in dadka ka shaqeeya iyo shirkadaha ay dowladdu u xirto ay lacaga badan saaraan isla markaana ay ka raadiyaan manfac iyo faa'iido.